الله عليكم الكستو دنيا كجوجتان ولكن انت حسن محمد بيجكayga daawanaysa waa Idiris Qiiso page official sidoo kale waxaad igala socon kartaa kanaalkayga YouTube-ka Idiris Qiiso channel official halka maanta waxaan kaga hadli doonaa furniinka degdega ama lamanaha waxa sababa in ay mar kastaba isku dhacaan kalena tagaan waxaan ku noolnahay wadamo islaama sideena caadiga waxaan nahay bulshada Soomaaliyeed oo xagga diinta islaamka aad ugu fiican markastana waxa uu ninka dhalinyaradii ku hamiyaa shaqada ama waxbarasho kadib inuu guursado gabadh u qalmata oo asaagiisa inta badanna waxaan ku qiimeynaa qabiil iyo haybta uu ka soo jeedo xagga bulshada caalamka ayna marnaba ku qiimeyn qabiilka iyo meesha uu ka soo jeedo kaliya ay ku qiimeeyaan waxa uu yahay iyo akhlaaqdiisa si kastaba ahaatee marka uu ninka dhalinyaradii uu shukaansi bilaabo waxa uu la hadlaa gabadha uu markaa calmaday taasoo ay isku qoraan waxyaabo ay iskuna mariyaan social media shukaansuguna waa mid labada qof ee lamaanaha guurka ka hor dhex mara sidii caadada ahayd berigii hore gabadha iyo inanka iyagoona weligood sarag ayaa la isku dari jiray laakiin hadda way ka duwan tahay oo teknoolajiyad ayaa la adeegsadaa kadib gabadha iyo wiilku marka ay wada hadlaan gabadhu waxay bilowdaa in ay kulan sameeyaan ama ay meel ku kulmaan isaga iyo iyadu si qurxisa inanka dhalinyarada ay la kulmayso ama wiilkan ay hadda isbarteen una sheegaysaa meelaha ay kaga sugan tahay marka ay timaado goobta ay ku ballameen oo dhahdo wadada ayaan ku soo jiraa waxaanan u soo socdaa meeshii aan ku ballannay markastana niyaddeeda waxa ay gelisaa ninkani qaabkeen nooceeya ayuu ku noqon doonaa maadaama markii hore ay isweydaarsadeen sawirro kaliya oona wax aragti life ah ayna isku arag marka ay sheekadu si fiican iskugu dibadhacdo ayna wada kulmaan waxa ay go'aansadaan in ay isguursadaan isaga iyo iyadu sheekada dheer iyo shukaansiga kadib guurkoogu waxa uu noqdaa mid ay gabadhu dhahdo waxaan rabaa kharash aad u badan sida in loo qabto xalfad aad u weyn si ay dhalinyarta asxaabteeda iyo ehladu uga soo qayb galaan kharashka marka arooska kaga baxayna waa mid aad u badan maadaama gabadhu ay rabto in saaxiibadeed ay dhahdo aniga waxa la igu dhigay arooskayga hudheel hebel waxaana ka soo qayb galay dad aad u badan oo waxa uu ahaa aroos shidan gabadh kastaana waxa ay jeceshahay sida oo kale guurka kadib waxa imaanaya ciyaal oo sidii hore noloshu way iska bedelaysaa waxaana bilaabmaya qaylo iyo dhibaato taasoo sababtama intii ay wada socdeen mid kastaaba midka kale iska dhisayay laakiin marka guriga la yimaado wax kastaaba waxa ay noqonayaan sidii uu qofku ahaa waxaana bilaabmaysaa dhibaato iyo murug ka dhaxaysa labada isqaba ama labadii marka hore isku faraxsanaa taasoo gabadhu ay bilaabayso qoomamayo maxaa kuu geeyey guurka noocan oo kale waayo markii hore mid kastaaba midka kale uu iska dhisayay oo ma tusi jirin cilladihiisa ama dhaliilada uu leeyahay ee marka ay guri wada galaan ayaa waxa imaanaya dhaliilo badan iyo isku fiirfiirsi badan ka dhigta qoyska mid aana sii jirin oo meesha ku burbura waxaana ka wanaagsan inay gabadhu ninkeyga la xaasho ayna weydiiso waxyaabaha uu ka cabanayo isaguna sidoo kale uu weydiiyo xaaskiisa waxa ay ka cabanayso kaasoo ugu gudbinaya dareen jacayl leh dhibka iyo waxa dhex yaala qaabka ay u xalin lahaayeen gabadhuna sidoo kale in ay ninkeyga ku dadaasho qaabkii ay iskaga moosi lahaayeen dhibaatooyinka iyo waxyaabaha soo baxa waayo Soomaalidu hore ugu mahmaad labadiisa daan ayaa iskugu dhawo way isqaniinaan iyaguba markastana waxa wanaagsan inaad toddobaadkii ama labadii cisho adiga iyo xaaskaagu intaad isku timaadaan falaqaysaan waxyaabaha aad isku haysiin caloosha ama waxyaabaha ay tabanayso xaasku sidoo kalena ninku wuxuu tabanayo uu soo bandhigto taasoo ka dhigaysa
qoyska mid sii jira iyo saaxiibtinimo waarta labadooda waa gabadh kastaaba inay ninkeyga saaxiibka koobaad ka dhigato waxay ka caawinaysaa inuu qoysku sii jiro isagana sidoo kale inuu saaxiibtiisa koobaad ka dhigto waxay sii dheeraynaysaa wada noolaanshaha lamaanaha markastana waa inaad ku dadaashaa gabadhaada sidaad uga ilaalisid ilinta iyo dhibaatooyinka ay gudaha ku qarsanayso oo aad isbuucii mar wada sheekaysataan dhibaatada ama 3 cishaba aad mar wada sheekaysataan oo dhibaato kastoo jirta aad ka wada xaashaan haddii ay wax ka tabanayso iyo adoo haddaad wax ka tabanaysaba muqalkan inta ayaan ku soo afmeeri doonaa muqalkani hadduu yahay mid ku xiiso geliyay fadlan share asxaabtaada la wadaag mahadsanid